aqoonta ficil la'aanta ahi waa isli weyni. bini'aadamka oo idil way dhintaan marka laga reebo kuwa aqoonta leh. dadka oo loo wada furnaadaa waxa ay ku dhexal siisaa saaxiibo xun. dadka oo laga xirxirnaadaa waxaa laga dhexlaa colaad. hana wada furnaanin, hana wada xidhnaan. ruux kasta oo aan siiyey qadarin aanu mutaysan wuxuu qadarinteedii lumiyey in leeg intii aan ku kordhiyey maamuuskiisa. khaladka iska nac, balse ha nicin qofka sameeya. haddii aniga si gooni aad iigu nasteexayso waad ii nasteexaysay. haddii aadse dadka hortooda iigu nasteexaysay waad i fadeexaysay. qofka jecla inuu alle qalbiga u furo, xigmadna ku arsaaqo, cidlada ha badsado, cuntada ha yaraysto, laba qolon ayuusan raacin, dadka maangaabka ahi iyo culimmada kuwa aanan anshaxa iyo cadaaladda lahayn. qofka wax laga caroodo lagu sameeyo oo aanan caroonin waa dameer. qofka loo sameeyo wax lagu raali noqdo oo aan raali noqon isagu waa shaydaan. ninka u maleeya inuu ka nabadgelayo dadka carabkoodu kaasi waa waalan yahay. alle ayay dhaheen labo ilaah ayuu saddex ku yahay, subxaana allah. nebiga ayay dhaheen waa nin waalan oo sixiroolo ah. marka ma u malaynaysa inaad adigu ka nabadgelayso? cidna ha u joojin, waddada alle hayso. qofkii dadka hadalladooda kuu keena hadhow buu adna hadal kaa qaadaa. qofkii dadka kugu agxantaa hadhow buu adoo maqan ku xantaa. qofkii markaad raaligelisid kugu sheega ama kugu tilmaamo wax aadan ahayn, hadhow markuu xanaaqo ayuu kugu sheegi doonaa ama kugu tilmaami doonaa wax aadan ahayn.